marka asxaabtaada oo adiga aad la socotid ku depression ka bad asxaabtaada kuma jeclo haddii aad qof depression ka batay waswaas dile walwal dile asxaabtiis inoo bedelo ku khasban yahay asxaabtaada bedel maxaa dhacay xaaladda aad ku jirto waa friendskaaga ku dhowaa maxay kaaga bixi la yihiin haddaysan dhibkaaga qayb ka ahayn asxaabtaada dhibkaaga qayb ka yihiin asxaabtaada bedel asxaabtaada si ku bedeli waa ka gaabsanaya iga dhan waxaa samaynaya asxaab cusub oo dabeecadda aa leedaa leh tusaale anu waxaan jeclahay inaan maadnan quraan akhriyo ninka adiga saaxiibka aaltaa quraan inuu akhriyo ma jecel muxuu jecel hees inuu dhegeysto jecel ana hees inaan dhegeysto ma jecel hoobigeyga maaha saaxiib ma naqi kartiin waan isla socotiin maalin walba qofkan wuxuu jecel inuu hees dhegeysto adigana markii muustika la tumabo ilaahay qalbigaaga maba gelininba hoob ma kaaga dhigin quraan inaad dhegeysto quraan akhristo hoob kaaga dhigin masla soco kartiin marka masla soco kartiin ninkan wuxuu jecel yahay inuu filmaanta daawado aflaanta maraykanku jecel yahay adina aflaanta hindiga jecesha misla jaan qaadi kartiin ninkan wuxuu jecel yahay inuu game dheelo adigana inaad badoon daawataa jecesha saaxiibana waa tihiin waxaa leedahay maanta aniga kooxdeeda manchester way badisay manchester tee taageerta labada manchester middaa taageertaa sheegay ama waxaan taageeray aniga arsenal horyaalkan qaadi raba aa dhehe jaa waxbaa ninkaan maba kula yaqaanabo soo kugula sheekaysanaa marka depressionka ku keeni waxwaa mawduuca aa ka hadli lahayd qofka aa kala hadli lahaydbo ama saaxiibkaa ha naqdo gabar ha naqato ama wiil ha naqdo qofka maba isku fahmaysiinba qofkan wuxuu ku leeyahay ana hoobigay ciyaaro ma ah janji your friends saaxiibkaaga ha naqdo qof hoobigaaga kaala hadli karo ideologigaaga kaala hadli karo isku ideology aad tihiin haddii kale maxaa waaye mar walba depression ku jiray waxaa imaanay waxaa arkay 5 qof isla fadhisa oo mobile fiirsanaya ma isku hadli laayihiin shantooda isku idea ma aha mid gabaroo ka hadlaa mid filnoo ka hadlaa mid ciyaaroo ka hadlaa mid siyaasadoo ka hadlaa waxaa laga yaabaa inaada siyaasad jecleen siyaasadna dhibay ku keenayba waayo siyaasi maataa maya siyaasad maa barata maya gabka dheh mawduuc kale iska aad marka dhibaatada ugu badan faktarka ugu badan qofka depressionka haya waxay kaga timaadaa asxaabtiisa kaga timaadaa qodobka sideedaad family problem ku haysta bointiga haddaa kasoo hadlay family problem dhowr mara kasoo hadlay arrimo oo qoyska u qarsan ama arrimo qoyska ka dhex jiro family problem maadaama family problem hal mida loo gudbi karaa family problem dhowr nooc waaye hadduu income yahay family business inaa samaystiin waaye family business waa samaysan kartiin meesha ku nooshiinbo idea oo family ay ku shaqaystaan inaa heshiina u baahan tihiin haddii idea oo family ku shaqaystaan ay heshiin yaa samayn kara marka ideas family oo problemkii xali karo aabbaha xali kara ama hooyada xali karta hooyada waxay samaysay aabbiya ma nooloo kale hooyadiyaa joogto banaankii miis dhigata ganacsiyaa samaynaya tir mar wiilka ilaalinaya mar gabadha ilaalinaysa family problemku waa dhammaaday risaaqadii la cun lahaa laga wada fikirooyaa hadduu aabbihi nool yahay ganacsi oo abuuraa start amani u raadina ilmihiyaa ka shaqaynayaan family problem waa dhammaaday haddii laakiin ilmo badan ay meesha ugulin oo xaas iyo nin isqaba ay yihiin inta badan family problem wuu jiraa oo rag iyo dumar isguursada kaasna mawduuc gooni ugu soo hadli doonaa oo sida loo xaliyaa family problemka mawduuc oo madax bannaan ugu soo hadli doonaa oo ku saabsan laakiin family problemka inta badan wuxuu sababaa depression uu sababaa depressionka factor weyn laba shay hadday ka halawdo noloshaada healthy ma naqanaysid meesha aad jiifanaysid iyo waxa aad cunaysid badarka aad cunaysid oo ka halaawo caafimaadkaaga problema qabtaa meesha aad jiifanaysid ee ka halawdo problema qabtaa labadaas iska sax marka family problem marka intoo ka imaana raashinka aad cun laheedaa ka halaysa meesha aad jiifan laheedna problema ka tagan labadaas problem haddaa qabtid oo aysan kuu xalisnayn bannaanka badda soo aadaysa adan depression aa qabtaa marka kaas waxaa rajaynaya inaad iska xalisid dhaqaale la'aan ku haysato qodobka 9aad income ma ku soo galooyo income hadduu ku soo galaynin dhalinyaraad tahay oo mar walba way dhacdaa qofka mar inuu taajir noqdo mar inuu faqiir noqdo waxaa samaysaa dadka u dhowraadi si markay garabkaaga ugu baxaan berito ilaahay wuu kuu jeedaa ilaahay kaa saara dhibka maxaa samaynaya maadaama income dhaqaale dari ay ku hayso habeen walba 7 suuratul idaa waqaca akhri suuratul waaqaca akhri salaad walbana waxaa ku ducaystaa allaahumma rabbi innii lama anzalta ilaya min khayrin faqiir ganacsi dhaqaaqna samay ducadana waa ku ducaystay idaa waqacana waa akhri laga rabaa marka istikfaartan badanaa oo afkiiya gaabsanaa
income waa helaa hadda adoo yar faqiir aad tahay ilaahay qofka faqiirnimo yaraantiisa inuu faqrinimo ku dhalo faqrinimo ku dilaayo qofku waa inuu labada tajrubo soo maraa waa inuu lacagna soo arkaa baahina soo arkaa labada tajrubo ilaahay dadku waa gelinaa ilaahay wuxuu rabaa dadka inuu kala saaro rabaa hadkoo kuu soo hormariyay ku xirantaha marka hadduu baahida kuu soo hormariy sabar taajirnimada hadduu kuu soo hormariy waa ujeedaa si u baashaan ala taajiriinta waa ujeed alaabta iska beddelayaan dharka iska beddelayaan waa kibraayaan raashinkay daadinayaan maxaa keenaya hal oday oo lacagtaas loo soo dhiibo soo shaqaynaya nool odayga waa dhintay maanta waa baxay markuu baxo faqiirtanimada hadday bilaabanaya marka aabbaha markuu noolaay ma ka faa'iidaysan adiga ma dhihin dhaqaalaha aa ilaashano ilaahay wuxuu yidhi watilka alayaamu nudaawilahaa bayna annaas u dhahay maanta hadduu ilaahay awood kuu dhiibay haasdhin awood weliga adaa haysanaysa ma haysanaysa beri ana igu soo wareejinaa maanta ana haddaan faqiir ahay awood ana igu soo wareejinaa hadda ada faqiir tahay aduu ilahay kugu soo wareejinaa nin kasta awoodda oo ilaahay dhaqaale u siiyey ama awoodda xukun oo siiyey marka oo gacanta ku haysto qofka kale noo sabraa la rabaa markaad sabartid waxaa dhacaya marka awoodda wuxuu kusoo wareejinaa ilaahay qof kale kusoo wareejinaa beri markuu kugu soo wareejiyo ha ku dayan dabaalka shalay ada ku dulmiya ku dayan maxaa samaysaa guusha waxaa lagu gaaraa inaadan qof ku dayanin qofkan waa ku daya dabaalaa naqatay dabaal daa naqata maanan dabaalnimo le malqu jiro malasdilaale malaslayna waa may dadka qofka waa kaa baahan abtigaa dhal ama adeerkaa dhal ama abaha dhal waa baahan yahay shalay wax ma ku siin taajir u ahay aabbihiisaa dhintay aabbihiis markuu geeriyooda adna faqiirnimo ka soo kortay waa soo weynaatay ku kala kacday ha ku dayan waa kaa waay hadduu taajir ahay shalay oo maanta faqiiroobay inaad garab istaagtidaa la rabaa waa xilliga qofka bini aadanka oo ogaanayay dhibkoo shalay kuu geystay iyo abaalka ammaanta u barata waa oynaa ooyintaas duco waay ooyin habaar ma aha ooyinta laba waay midna waa habaar midna waa duco waay markii lagu dulmiya haddaa ooysta habaar waay laakiin markaa qofkaa dulmisay oo adi beri oo asxaan kuu sameeyo oo qofkii wax dulmiyey asxaanka loo sameeyo ooyo duco waay ilaa wax kaloo sameeyo waay ninaa shala dulmisay aa dhib u geysatay waxaa ku samaysaa ogeeda maan asxaan kuu sameeyo waxaa samaysaa garaweysa wax walbaa ku samaysa waa ooynay leebis ilin kaasoo daadanaysa ilin duco waay ilintaas ma xukumi kartid ilin oo qalbi ka timaado waa ilaaha waa qalbigaa adan ma xukumi kartid marka inaad u baahanaatid inaad u baahan tahay haba bedel depressionka hadduu kaa bato oo inta badan soomaalidu waxay dhahaan buufsaan nahaayo waddankan waa nacay inaa ka tagaa rabaa depression ahay qofkaas haba bedel u baahan yahay dad badanaa baxay sacuudiya tageen maraykanay tageen yurubay tageen way soo naqdeen intay ka shaqaystaan soomaaliya ka shaqaystaan maxaa loogu shaqaysto waa meelay aadeen waa soo baxay waddankoo shaqo u soo doontay ama dowladoo shaqo ka hel ama hay-adoo shaqo ka hel ama jaamacadoo shaqo ka hel ama ganacsi oo furta maqaayo ama hotel oo furta shalay markuu yurub joogo muxuu dhaqaalaas u sameey waay oo maanta qof sameeyey wuxuu soo ogaaday haba beddeloo soo sameeyey haba beddel markuu soo sameeyey depression a waddanka ku hayay habadoo soo beddelay haba beddelkana qofka waa anfaca ha ku diidin laakiin ilmaha intay yaryihin hala xakameeya hadday gabar tahay hala xakameeya hadduu wiil hala xakameeya caqliga weli ma korin hadday baxaan dibadda aadaan dad badan oo soomaali badan xabsi ku xiranaa jiraan qaladaaday galeen sharciga waddanka ma taqaanid nairobi ay ugu sukaysa maanta sharcigooda ma taqaanid waa baxdi waa ka degatay buug la akhristaa jiro oo waddanka sharciga loogu hadlaa jiro googlo dhex yaalaa googlaa laga soo degsadaa eelborg intaada ka degin ka hor buug inaa akhristid waayo nidaamka waddankaas u degan waa fahanta ma adi nidaamka waddankaas u degan ma taqaanid jayna iyo maanta soomaaliya isku shaqo ma aha jayna intaasoo bilyan waa ruul oo ka duwan ay leeyihin soomaaliya jayna aaduusaa ama maraykan ay aado maraykan waa waddanka sharci ahaan ka duwan ee adduunyada inteeda kale markii la fiiriyo waayo waxaa ka jira waxa la freedom speech laakiin freedom marka inta badan hawo beddelkaas u baahannahay oo inaan habada soo beddelatid waddamada ajaanibta aad tagtid dadka qaar way u baahan yihiin jabiga inay soo beddeshaan haba beddelkana inta badan wuxuu keenaa qofka inuu development shakhsiyan soo sameeyo soomaalida qurbaa ka imaadna waa arag hadda waddanka iyagaa inta badan dhaqaala ugu badan ka sameeya dadka waddanka joogan dhaqaalo way leeyihiin laakiin inta badan activity markii la fiiriyo waxaa ku badan dadka qurba joogta ku badan marka qofka waddanka jooga hadduu depression hayo oo magaalada dhibsaday inta badan ha isku dayo inuu ku cibro qaado dadka ka horeeyay bax soo noqdo hadduu dhahay anna waa baxa waa soo noqonaa haddii familka awoodaan hadiraan haddii familka awoodinna ha isku dayo inuu wax isku mashquul yiraahdo insha allah mawduucigan intaas ku soo gabagabeynaa
وانا ما سنتين مقال كان ضد بدنه دباتيس تجري كرو ولا شهر قري لو ذاك مقال كسي وفا إلي استعيقنا أديقن أجر إله كاس